kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tagay deegaanada ay ka socdaan dagaalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay ciribtirka Al-Shabaab. Soomaalida Canada oo qabanaya dibadbaxyo ay cadaalad ku dalbanayaan kadib markii gabar Soomaali ah lagu dilay goob habeenkii lagu caweeyo. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta safar ku tagay deegaanada ay ka socdaan howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn booqday degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ka mid ahayd degmooyinka dhawaan laga qabsaday kooxda Al-Shabaab. madaxweyne Xasan ayaa shacabka iyo ciidamada ku sugan Maxaas ku amaanay guulaha ay ka gaareen dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo isku duubnida ay muujiyeen, isagoo wacad ku maray in inta uu madaxweyne yahay ay dawladdiisa ka go'an tahay in kooxda Al-Shabaab Soomaaliya laga ciribtiro. madaxweyne Xasan ayaa u sii gudbay degmada Baxdo ee gobolka Mudug oo ka mid ah deegaanada lafdhabarka u ah howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. madaxweyne Xasan ayaa shacabka reer Baxdo ku amaanay geesinimada ay muujiyeen ee horseeday in maanta ay degmadaasi ugu noolaadaan iyagoo aan cabsi ka qabin kooxda Al-Shabaab. madaxweyne Xasan ayaa Maxaas iyo Baxdo u ballan qaaday in dawladdiisu ay gaarsiin doonto adeegga dawladnimo dhammaanba deegaanada laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale tagay degmada Wisil ee gobolka Mudug. waa safarkii ugu horeeyay ee madaxweynuhu ku tago furmaha dagaalka tan iyo markii uu bilowday howlgallada militari ee wadajirka ah ee ka socda maamulada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Canada ayaa waxa ay sheegeen inay qaban doonaan dibadbaxyo ay cadaalad ugu raadinayaan gabar Soomaaliyeed oo lagu dilay goob habeenkii lagu caweeyo oo ku taala magaalada Saskatoon. Soomaalida ayaa ka carootay kadib markii la sii daayay oo damiin ahaan lagu sii daayay eedeysanaha lagana dhigay lacag aad u yar. wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto. waa hodan xaashi oo ah gabar Soomaali Canadian ah oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada Saskatoon ee dalkan Canada kadib dagaal dhex maray iyada iyo Paige Threat Fisher oo ah gabar cadaan ah. muuqaal laga duubay dhimashada Allah u naxariisto hodan xaashi ayaa aad u qabsaday baraha bulshada, taasoo keentay in dad badan ay aad u hadalhayaan qaabkii naxariis darrada ahayd ee loo dilay. eedeysanaha oo markii hore lagu soo oogay darajada heerka labaad ee dilka ayaa markii dambe hoos loo dhigay, waxaa laga dhigay mid dilka ku dhacay qaab kama ah. Soomaalida ayaa aad uga carooday arrinkaas sida ay sheegeen qaar ka mid ah hoggaanka jaaliyadda oo aan kula xiriiray aaladda Zoom-ka. marka Soomaalida waxaa caroodsiiyay few things. waxay ka mid ahaayeen gabadha sida lagu dilay meesha, dad oo meesha taagan oo waxna waxtar waayeen oo video ka duubayeen gabadhan oo innocent meesha lagu dilay. Soomaalida aad u caroodeen. waxaa caroodsiiyay waa dad kumanaan meesha taagan oo wax sameynayeen. kadib adana anagoo ah Maxamed Xaaji Nuur waxaan tagay maalinta Khamiista oo maxkamadda la joogay, meesha ayaan joogay. inkastoo aniga aan maqlay markii hore gabadha waxaa lagu qabtay tan diles Miss Fisher waxaa lagu qabtay maxaa lahaa second degree murder, inay qoftaas saasa lagu qabtay. kadib waxaa maqlay isla habeenkii maxaa lahaa the second degree murder waa downgrade lagu sameeyay, waa la qabsiisay, khafiif laga dhigay oo waxaa looga dhigay wax aan kas ahayn ku disha la yiri askarta saadeen. jaaliyadda Soomaalida ayay la yaab ku noqotay in lacag aad u yar damaanad ahaan loogu sii daayo eedeysanaha. markaan arkay sheekadaas aniga xanuunka zaid I was speechless. waa hadal waay ilaa hadda macnaha waxaan riyonay tahay umaleenaya. booliska oo soo saaray qoraal kooban ayaa sheegay in xilli uu baaritaanku isa sii tarayo saraakiishuna ay awood u yeesheen in muuqaalka ay dhinacyo badan ka eegaan islamarkaana ay wareystaan markhaatiyaal
in caddayntu ay noqotay mid xoojinaysa in falku uu ku dhacay qaab kama ah. waxay intaasi ku dareen in iyadoo la eegayo habsami u socodka baaritaanku aysan bixin karin macluumaad intaasi dhaafsiisan oo la xiriira eedeysanaha. marka laga soo tago Soomaalida ku nool gobolka uu dilku ka dhacay, sidoo kale guud ahaan Soomaalida ku nool Canada ayaa aad uga xumaaday dhacdadan. haddaan nahay Soomaalida Canada degan aad ayaan uga xumaanay cadaalad darrada lagu sameeyay Allah u naxariistay Hodan Xaashi in waliba qofkii dilka lagu eedeeyay la sii daayo oo lacag damaanad $5,000 ah lagu sii daayo waa waxaan aad uga xumaanay. annaga hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan qaban qaabinaynaa haddaan nahay Soomaalida Canada degan banaanbaxyo magaalooyinka kala duwan lagu qaban doono. Jaaliyadaha laga tiri badan yahay ee dalkan ayaa mararka qaar ka cawda cadaalad darri ay kala kulmaan nidaamka dalkan. Xuseen Nuur Xaaji, Qubanaha Maanta ee VOA, Toronto. Itoobiya ayaa sheegtay inay bilowday in ay koronto u dhoofiso wadanka Kenya sida uu dhigayo heshiis 25 sano oo u dhaxeeya labadan dal ee dariska ee ku wada yaala bariga Afrika. talabadan ayaa timid kadib markii Itoobiya horaantii sanadkan ay ku dhawaaqday in ay bilowday in ay koronto ka dhaliso mashruuca biyo-xireenka weyn ay ka wado webiga Nile. Waaxda korontada Itoobiya ayaa sheegtay in qadka isku xira labada dal oo ay ku kacayso $500 milyan uu awood u leeyahay inuu gudbiyo 2,000 oo megawatts isla markaana uu soo saaro ilaa iyo $100 milyan sanadkii. Hay'adda shidaalka iyo tamarta ee Kenya ayaa xaqiijisay inay Khamiistii bilowday inay koronto ka keensato wadanka Itoobiya. Biyo-xireenka Itoobiya ay korontada ka dhalinayso ee ku yaala webiga Nile ayaa ku kacay $4.2 bilyan kaasi oo ka caraysiyay dalalka dariska ee Suudaan iyo Masar. Itoobiya ayaa horaba korontada uga iibinaysay Suudaan iyo Djibouti, waxayna heshiisyo is-afgarada la saxiixatay koonfurta Suudaan, Tanzania iyo maamulka Somaliland, sida ay sheegtay waaxda korontada Itoobiya ee EEP. ugu dambeyntiina wadanka Qatar waxaa maalinta berita ka bilaabanaya koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 waxaana Qatar ay noqonaysaa wadankii ugu horeeyay ee muslima ee martigeliya koobka kubadda cagta adduunka. madaxweynaha FIFA Gianni Infantino ayaa isagoo ka hadlayay shir jaraa'id magaalada Doha waxa uu dalalka reer galbeedka ku eedeeyay munaafaqnimo ama laba wajiilanimo ku aadan marka ay tabinayaan wararka la xiriira sida ay Qatar ula macaamisho shaqaalaha ajnabiga ee dalalkaasi ka shaqeeya. Infantino oo muddo saacada ku dhow hadlayay ayaa difaacay Qatar iyo martigelinteeda koobka kubadda cagta adduunka. dalalka Yurub waa inay raaligelin ka bixiyaan tacadiyadii ay taariikhdooda geysteen intii ay diiradda saari lahaayeen arrimaha la xiriira shaqaalaha ajnabiga ee Qatar ka shaqeeya, ayuu yiri madaxweynaha FIFA. kooxaha kubadda cagta iyo taageerayaasha kubadda cagta oo dafaha dunida ka socda ayaa gaaray dalka Qatar. koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 ee ka furmaya wadanka Qatar maalinta berita ayaa ciyaarta furitaanka waxaa daafuraya wadanka Qatar oo koobka martigelinaya iyo wadanka Ecuador. dhinaca kale waxaa markii ugu horeysay ciyaaraha kubadda cagta garsoorayaal ka noqon doona 3 haweena oo ka kala socda dalalka Rwanda, Faransiiska iyo Japan. dhinaca kale maalinta Isniinta waxaa dhici doona 3 kulan iyadoo wadamada Holland iyo Senegal oo groupka A ka wada tirsan yihiin Qatar iyo Ecuador ay kulmi doonaan. xulka qaranka ee Senegal ayaa waxaa ka maqnaan doona xidigooda ay ku dhaartaan ee Sadio Mane oo toddobaadkan ay kooxdiisa kubadda cagta ee Bayern Munich shaacisay in jilibka qaliin lagaga sameeyay isla markaasina uu koobka kubadda cagta adduunka ka maqnaan doono iyadoo aan la sheegin goorta uu ciyaaraha kubadda cagta xidigani dib ugu soo noqon doono, taasi oo dhaawac weyn ku noqon doonta xulka qaranka ee Senegal. groupka B ayaa waxa uu noqonayaa gruubyada sida weyn isha loogu hayn doono.
marka laga tago dhinaca kubadda cagta gruubkan siyaasad ayaa ku gadaaman oo wadamo dhinaca siyaasadda aada isku haya una xafiiltama ayaa ku kulmaya wadamada ingiriiska iyo iiraan ayaa kulanka koowaad maalinta isniinta ah kulmi doona halka maraykanka iyo walesna ay fooda isdari doonaan haddana haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee wadanka maraykankana goor dambe habeenkii xalay ahayd kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo New York Knicks ayaa kulan xiiso badan oo ku dhex maray magaalada San Francisco ee gobolka California waa guriga kooxda Golden State Warriors waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 111 halka kooxda New York Knicksna ay la timid 101 ciyaartan ayaa waxaa cusid mudan xidigaha Wiggins iyo Thompson ay min 20 dhibcood dhaliyeen halka ciyaaryahan Stephen Curry isaguna uu 24 dhibcood dhaliyay dhammaan xidigahaasi waxay digihii suura geliyay sanadkii la soo dhaafay ama xilli ciyaareedkii la soo dhaafay aan iraahdee in ay koobka NBA-da u qaadaan kooxda Golden State Warriors oo iyadu laakiin haatan la daalaa dhacaysa guuldarooyin 7 kulan waa ay badisay halka 9 kulanna afka ciidda loo daray wahagaag daawadayaal guud ahaana barnaamijkeena qubanaha maanta inta ayaan kusoo gabagabeynayaa intaynu mar kale dib u kulmi doono waa maxamuud mascad oo idinku dhaafaya sida ay nooli kulanta